بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا ليال dadka qiimaha iyo qadarinta mudan ee ma garanaysa Soomaaliyeed ee fieldigan ku dhex jira ama daawanaya ama bilow ay u tahay inay horumariyaan raba oo ay bartaan wadankii iyo umadeeni iyo lafoogan wax uga faa'iidaan umadina wax u faa'iideeyaan raba ku soo dhawaada video kale oo kamid ah videoyadeeni aan inoo taxanaha ahaa ee CCNA da cusub marka maanta waxaan galaynaa on bilow inoo static routing-ka ama static-ka yahay noo marka static ayaan galaynaa faa'iidooyinka uu leeyahay iyo waxyaalaha ma garanaysaa in aan faa'iidooyin badan ku lahayn inta baan ka hadlaynaa. Okay, horta static waxa la yiraahdaa waa wax taagan mar walba wax taagan waxa ka soo horjeeda waxa la yiraahdaa dynamic oo ah guurguura ama automatic ah. Static sida kale hadii erey kale loo dhigo waa manual wax oo manual ah oo yani mesela ma garanaysaa wax oo gacanta in laga qabto u baahan. Automatic-guna waa wax mar la tilmaamo kadibna isqabta mar walba. And that is exactly what we are talking about in here. Waa taasina waa tan ka hadlayna imika. Okay, static routing waxa weey waa manual ma garanaysaa routing waa wax aad gacanta had iyo jeer aad kula jirto oo ma garanaysaa hadaad route aad sameynayso waa inaad mar walba aad gacanta kula jirto oo route-kii aad sameysaa tusaale ahaan inta topology baan haysanaa halkan mar walba ma garanaysaa imika kaas waxaan ku sameyn doonaa static hadii ilaahay dhaado aad mar walba hadii linkigaasi xumaado yani waa inaad hadana linki kasta oo ka kamid ah waa inaad gacanta ku gelisaa halka dynamic haduu markaa imika kaasi down noqdo for example oo mid kale kaga xidhan yahay waa inaad ka kale ka xidhasay oo ka kale u soo gaaro laakiin si yani for example in halka haduu router yaalo oo router kan linkigan down noqdo oo router kale halka yaalo oo router kan ku xidhan yahay kan ku sii xidhan yahay si uu redundancy u helo ama yani mesela waxa la dhahaa redundancy oo ah haduu linki ama xarig ama cable go ka kale si uu wali oo data kale ay u kala helaan oo wada xidhiidhaan waxay u baahan tahay inaad kaana gacanta ku ma garanaysaa aad had jeer routerka gacanta kula jirtid oo static aad ku sameeysid laakiin routing dynamic routing protocol wax la dhaw dhigan doonaa jiro oo hal mar baad kan ku configure gareyn kadib haduu kani go'o kan isaga automatic loo dooranayo haduu kani go'o kan automatic isaga u dooranayo intaas waa hordhaci hore marka muxuu faa'iido leeyahay static kaliya wuxuu faa'iido leeyahay waa more reliable because waxa la yiraahdo administrative distance uu leeyahay marka routine protocols oo dhan waan soo qornay marka administrative distance ga waxa la yiraahdaa trustworthiness macnaheedu waxa weeyeen sida loo kala jecel yahay ama sida loo kala aaminaad badan yahay oo routing-ku ama network-gu routeradu ay u kala aaminaan ma garanaysaa routerada ama garanaysaa network-yada tusaale ahaan ka ugu wanaagsan waa directly connected-ka waa ka router-ka ku xidhan iminka tusaale ahaan hadii uu network-gani kan yahay router-kan network-gan ku xidhan ama interface-kan tooska ugu xidhan wuxuu uga aaminaad badan yahay ma jirto macnaheedu waxa weeyaan network halka ku yaala uga dhow macnaheedu markuu midku uga dhow yahay uga aaminaad badan yahay marka static-gana waxa la yiraahdaa wuxuu ka aaminaad badan yahay oo looga aaminaad badan yahay oo laga dooranaya hadda isaga routing protocol-ku router-ka ay gudboonaadaan yani wax routing protocol ah haduu router ku configure gareysan yahay haday gudboonaadaan static-ga iyo dynamic-gu static ayuu hore ka qaadanaya sababtoo ah trustworthiness-kiisa ayaa 1 marka waxa weeyaan aad ayaa loo jecel yahay ma garatay router-ka kale ugu soo yani waxa ma garanaysaa in ka ugu soo dhow routing dynamic routing protocol waa 20 ka haysto oo la yiraahdo BGP waad arki doontaan marka in yarba yani halkan waxaan ku soo qoray waxa la yiraahdo ma garanaysaa administrative distance-ga oo static halbadaas uu kale yahay directly connected ku 0-ga ayaa ugu eg waa 0 to 255 I mean 0 ka bilaabma 255 na ku dhamaada where 0 halka au 0-ga waa the most trusted network 0 waa ka loogu jecel yahay oo ma garanaysaa loogu aaminaad badan yahay oo routeradu ugu aaminaad badan yahay 0 waxa wadanaya ka directly ugu xidhan in router-kan ka directly ugu xidhan ba 0 wadanaya sababtoo ah network kale yani computer kale ma soo marin bay ka dhigan router kale ma soo marin bay ka dhigan tahay imika router-kani buu uga aaminaad badan yahay kan sababtoo ah kan router-kan buu ka soo baxay laakiin kan isaga ayuu ka tafirmay oo isaga uu ka soo baxay marka waa aaminaad waa saas
halka 255 baa ugu dambayso ay unknown tahay wixii 255 wata ama 255 wata waa unknown lama garanayo kadib waa drop oo la iska tuuraya marka EIGRB do internalka markay tahay 9 kaasay wadataa oo magaranaysa administrative distance-ga OSBF ku 110 kaas wataa ISIS ku 115 kaasay wadataa directly connected to 0 gu wataa static-guna hal buu wataa oo yani waa kanun baa ka sareeya static-ga ka un baa laga jecel yahay kan waa ka directly connected ku xidhan interface-ka tooska ugu xidhan router-ka aan way kan baa looga aaminaad badan yahay 0-ga 1kuna waa ka ku soo xigo loogu aaminaad badan yahay 20ka halkan intan aan ku hayno 20ka ayaa ugu soo dhow oo laga sii midba midku ka yar yahay un baa de looga aaminaad badan yahay oo routeradu ka aaminaan marka BGP do external waxay wadataa 20 iyo IGRB do internal waxay wadataa 9 OSPF ku wuxuu wataa magaranaysa 110 sorry magaranaysa intermediate system-ka ama IS ku 125 ayay wadataa 115 ayay wadataa sorry ribtu waxay wadataa 120 on demand routing waxa la dhahaa inta badan la isticmaalo 160 buu wataa iyo IGRB do external markay tahay waxay wadataa 170 internal oo BGP da waxay wadataa 200 unknown kuna waa 250 marka kuwaas waa administrative distance okay administrative distance in static lagu daray oo xagga dambe laga daray waa optional permanent array oo keyword permanent la yiraahdo jiro in tusi doono markaan configure gareyno in lagu darayna waa optional laakiin muxuu administrative distance yahay administrative distance waa tii aan sheegnay nidhi waa trustworthiness ama sida magaranaysa loo kala jecel yahay loo kala aaminaad badan yahay where 0 is the best and 255 is the worst ma halku 0 ugu wanaagsan yahay 255 kuna ugu xun yahay midba midku ka yar yahayna waa la jecel yahay okay permanent keyword waxa weeye hadii aad static-gaaga router ku configure gareyso oo permanent xagga dambe ka raacayso macnaheedu waxa weeyaan marka interface topology-ga aan soo saarno imika hadii aan ma garanaysa ku configure garan doono waan tusi doonay aan router aan nidhaahno inkii ma garanaysa static-ga markaan static ku configure gareyno aan nidhaahno permanent hadii aan nidhaahno keyword permanent aan raacno macnaheedu waxa weeye hadii interface-kaas hadii yani ay down noqoto tusaale ahaan oo imika waxaan nidhi static baan ku configure gareyna waxaan nidhi interface-ka mar ama IP address-ka interface-kaas iyaan nidhi ma garanaysaa ma garanaysaa noo soo mari marka hadduu kani down noqdo interface-kani down noqoto macnaheedu waxa weeye static-ga caadi ahaan isagoona permanent haddayna la socon waa la remove gareeyaa فهمتين هذا ولا remove كرايا وأنا تشي دوناي ولا remove كرايا هذي لكن permanent keyword عن قدرنا إرجان keyword كان permanent هذي عن قدرنا معناه ده وحوي هايجا توريني static وهايجو مع الانترفيس كاست داون هالنقطة انت ما قررنا يسا إن static إيدا لكن static يعني هايجو جرو routine table كهي له وهايجو جرو لكن وحوي ده static معناه بدل ما له أو مركز ده interface كي بابا داون أو وح لا إجماعي ما قاعد يو لكن سؤال شو حنقنا يساون مركز هذا interface كساق عضو wuxuu inoo badbaadinaa waxa la yiraahdo CPU processing ama CPU ga oo ma garanaysaa in routerka markuu interface down noqoto ay hadana up noqoto in hal second ayuu eega look up sameeyaa routing table-ka intuu in static process gareynaya ay noqotaa marka si halka second aanu badbaadsano permanent keyword-ku ay wanaagsan tahay marka intaas haynaga ahaato theory-gi aan galno marka aan configure gareyno okay waan wada ma garanaysaa in waxa inoo dhiman kuwan waa routero okay intaan soo gaadhin kuwan waa routero laakiin change the host name change the host iyaan edhi marka waxaan bedelay saasaan edhi right click baan siiyay change symbol baan edhi sorry change the symbol baan edhi marka computer ma ku bedelay laakiin waa router marka routerada ma siinayna interface-yadoodii marka waxaan odhanaynaa ma garanaysaa marka waa iska router laakiin command baan gelinay la yiraahdo no IP routing command la yiraahdo ayaan geliyay marka macnihiisu waxa weeye no IP routing macnihiisu waxa weeyaan waxba ma root gareynayo marka waa iska host oo kale ma garatay no IP routing marka geliso hadaanka ma garatay marka waxa odhanayaa interface FA0 waa interface-kiisa isaga ku xidhan ma ujeedaan interface FA0/0 no shutdown IP address
kuwa kale waan soo configure gareynay routerada waan soo configure gareeyay laakiin kuwan un baan nila doonaya inaan tuso IP routing ka marka doonaysa inaad routerka host ka dhigtaan okay muxuu noqonayaa 192 waa IP address ka san gelinayna isaga 2 baan siinayna maadaama routerku wan qaatay maada kan uma switch ku uma baahna waxba 192.168.1.2 255.255.255.0 isaga waxaan siinaa /24 maxaa ma garanaysaa inta okay maxaa kale router 5 iyaan isagana ma garanaysaa isagana waxaan dhanaynaa okay waxaan ku jirnaa router 5 oo ah okay router 3 okay sorry bada router khaldan baan configure garan ku soo laabanaa dhab ma laha interface fa0/0 no shutdown IP address 192.168.1.2 255.255.255.0 kan maaragtay kan sanaan nadi marka router 5 ka ayaan u tagaynaa waxaan odhanaynaa interface-kiisa isaga interface-kaas iska ahaa laakiin waxaan ka bedelaynaa un 100 waan ka dhiganaa halka 1ka ma garatay saasaan odhanaynaa okay maxay noo dhiman kan 6ka waxaan okay router 3 horta ma nidhino ano moodan waxaan odhanaynaa no IP routing si aan isagana ma garanaysaa okay marka taa IP route hadda tiraahdo wuxuu qoranayaa cache is empty oh shit mid kale ayaan hadana waxaan isku keen bedelaynaa maanta IP routing okay do show IP route okay no empty good do show IP route good kana do show IP route okay kan horena no IP routing marka hadaan command ku celino waxba maka okay good raada interface waa kii u dambeeyay waa kaas waa router 6 kaas interface fa0/0 no shutdown IP address 172.16.200.2 so saas ma hay 200.2 ilan kaas uu qaadanaya moogta 2 buu qaadanaya maadaama switch waxba u baahnayn hay garatay okay routerada saasaan nidhi marka waxa weeyaan routerkan inuu spin garan karo 172.16.200.2 sama okay 2giis waa spin garana bal inuu kiisa kala gaari karo oo ah waa kaasaan joognaya kan imika isagu spin garana bal inuu interface-kiisi 3 ahaa interface-kiisi 1ka ahaa oo 172.16.200.1ka .1ka ahaa inuu gaadho anagana haddii aaban configure garayna weeyaan waa gaadhay moogta good maxaan sameynaynaa marka router 2 router 4 waxaan doonaa router 5 waxaan doonaa inuu router 2 1ka gaadho horta isaguna spin garay okay awe router 4 my router 5 waa inuu router 2 gaadha sorry router 5 waa inuu router 2 gaadha okay okay show IP route صح ping 192.168.100.1 horta isaga 2giisa ha gaadho waa sax uu gaadhaya isaga 1kiisana wuu spin garaynaya I mean 2giisana wuu spin garaynaya router 4 oo kan ah inuu 1ka inoo gaadho ayaan rabnaa horta la shay IP route isagu inaan disable garayna good waxaan odhanaynaa 192.168.1.1 inuu gaadho dad ma ku configure gareyn okay kan ma inaan configure gareyn baa laga yaabaa miya okay yeah okay okay show IP interface okay 1.2 okay
2giisa isgaaraya. Okay, marka router 1 baynaan configure garanaya. Show IP interface brief. Okay, okay. Kwas kan 2 baan siinay. Okay, halkan ka khaldan day kani ilan 2 buu ahaa 1 baan ka dhigay. Okay, 1 ma aha waa 2. Okay, router 4 aan tagno. Okay, interface kiisi away waa kan waa kan IP address kiisina 2 ka dhig. marka okay, marka imika inuu gaadho. Okay, kii hore ayaan beerkay. Sorry, number 2 isaga 2 gana waa ka waa inuu gaadho. marka waa ka gaadhay ma aragtaan 2gi waa ka gaadhay. Okay, good. marka imika waxaan haysanaa in ma garanaysaa in kuwan way isgaar midba midkiisa u gaaraya laakiin wuxuuna gaadhay inuu waxba shaqo isku lahayn. routerkan يعني إنه networking gaadha ayaan rabnaa ama routerkan inuu kani gaadha ayaan rabnaa. imika haddaan idhaahno halkan tusaale ahaan kani waa .1 soo ma ah. Okay, halkanna waa .2. Okay, kani laakiin halkan waa .1 halkanna waa .2 soo ma ah. Okay, marka haddii halkanna .1 because kuwanu .1 ku yahay soo ma ah waa .1. Okay, mid kasta waa ka halkiisa dhinacyadiisaan usoo dhignay. Okay, marka waxaan rabnaa inuu routerkan router 1 au gaadho router 2 because kiisan unbuu 2gan unbuu bingaraynaya day 2gan unbuu bingaraynaya router 1 ku yahay laakiin ma bingaraynayo inka router 1 ku wuxuu bingaraynaya client-giisa iyo magar orta client-giisa ma tijaabinay balan tijaabinay ping 192.168.2.2 client-gu waa kan ka xidhaya. Okay, inta waa ka isagu bingaraynaya kan kiisan kana interface-kana uu bingarayni doonaa. waxa odhanaynaa 1.2 waa ka uu bingaraynaya saaxiibkiisa kana laakiin kan ma bingarayn karo. sababtuna u bingarayn karin iskuma wada isku network ma kan kuma xidhna moog kan uu ku xidhaya marka wax isku xidhayaan jirin ma garata. waxaasaan u rabnaa moogta in ma garanaysaa in static aanu samayn doonaa imika. Okay, waa 70 waa kan aan bingaraynayna kan aan ku jirnaa oo router 1 inaan kan bingaraynaa rabnaa balina bingaraynaa eegana 0.1 soo mahayn waa ka ma bingarayn karay waayo interface kan oo 172.16.0.1 ka ah ma bingarayn karay sababta oo ah wuxuu diidan yahay ma garanaysaa hadda wax isku xidhay ma jiraan. marka waxaan odhanaynaa imika in waa cashirkeena aan ku hor laabana halkan. Okay, marka tan waata marka host ay ma garanaysaa in waxa kale oo ni soo dhaafay oo in halkan ku qoro theory ahaan horta aan ku sheegnaa in static waa static 3 nooc ayaa loo configure gareeyaa. mid waxa la yiraahdaa in ma garanaysaa static ayaa la yiraahdaa oo ma garanaysaa waxa la yiraahdaa waa IP route halkan aba nigu qoray. For example 172.16 for example tusaalahan baa idin siinaya. Okay, halkan ha 172.16 for example 0.0 kim kan sheegno kala 255.255.255.252 yeah kadib waxa odhanaysaa 192.168.1.0 tusaale ahaan ha okay mid waa ka waxa noocaas loo configure gareeyo waxa la yiraahdaa static ayaa la yiraahdaa. mid kale ayaa jiro waxa la yiraahdaa default route ayaa la yiraahdaa. moogtay oo waa maxay waa 0.0.0 gabigiiso dhan waa wada 0 ma garatay. markaas aad odhanaysaa waa example waxaan siinaya hadda waan configure garin doonaya waxaad leedahay igu route garee 0 gan iyo 0 gan iyo 0 yani waa waxa ka dhantay everything moogtay everything ma garatay oo everything yani waxa ka dhantay any network oo any subnet mask wata ma garatay. waxaan rabaa inuu gaaraad leedahay u root garee ama gaarsi baad leedahay 192.168 for example .5.0 tusaale ahaan numberka
gaarsi marka waxa la default route ayaa la yiraahdaa isaga inta badan la isticmaalo waxa leedahay 0.0.0.0 magarad waxa ka dhanta I don't waxa ka dhanta magaranaysa any magaranaysa network bit whatever the subnet mask it has subnet mask ku doonaya hayste any network or any subnet mask wata please igu route gare magaranaysa network gaas ayaad leedahay ka waxa la yiraahdaa default ama waxa oran kartaa serialka magaranaysa ama serial magaratay 0/0 igu route gare ama kana dooran kartaa labada waan wada dooran doona waan tusi doona ama serial ba makan ama ba serial ba shaysa ama fa 0/0 ba oran kartaa moogta interface ka doonta dooranay hadii ilaahay yiraahdo may garatay marka waa ka mid kale saddexaadna waxa jira waxa la yiraahdaa ip route tusaale ahaan waxa leedahay 192 ma garatay 168 waa host route ka moogta kan waxa la yiraahdaa waa nigu qori doona 168 tusaale ahaan ama ma garanaysa in 1.1 waa hostiga chaysa moogta oo leedahay 255.255.255. inta bidoo dhan baad wada kicinaysa moogta waxa odhanaysa marka ama interface baad igu gee odhanaysa ama waxa odhanaysa for example 10.1.1.1 summary ya odhanaysa moogta marka kan waxa la yiraahdaa static caadi ah aw halkan dib u riixan kan waxa la yiraahdaa static iska dhaade halkaas waa iska ka waxa la yiraahdaa static ka sare kan waxa la yiraahdaa ka sare default ka sare waxa la yiraahdaa default route code ka saddexaad waxa la yiraahdaa host route ma fahamteen kaas waa static caadiga ka waa default route oo ma garanaysa markaad any network u dir aad leedahay in kanina waxa la yiraahdaa host route oo waa markaad leedahay IP address ko dhan wada kicinayso marka inta waan eegi doonaa haddaan waqtiga nagu simo bal waa yahay inoo wada okay hadda waxaan rabnaa maadaama kan configure gareyn kari waayay waxaan rabnaa router 1 inuu networkan saddexda network ba inuu gaadho ayaan rabnaa marka static baan ku wada sameeynaa xoreyna config waxa la IP route okay waxaan odhanaynaa IP route sama marka kaasaan soo qaadanayna because kaasaan rabnaa inaan gaadhama 172.16.0.0 waxaana 255.255.255.252 ma garat marka waxa odhanaynaa okay marka waxa odhanaynaa interface kan ama IP address kan qoraynaa ama waxaan qoraynaa ma aragtay ama IP address kan qoraynaa ama waxaan qoraynaa interface ka kan IP address kan qoraynaa waxa odhanaynaa waxaad noo soo maraysaa 192.168.1.2 isoo mari okay sida ma nidhi okay hadda toole waan bingareynaa waa inaga diiday soo maaha maanta inuu bingareeyaan eegana ma bingareena because wuxuu noo bingareynay waxa weey inuu kana route back la way imka kana nidhi ina gaarsi soo maaha kanina marka waa inuu horta waxa la yiraahdaa kan markuu diro waa inuu kanina route kale helaa maaragtay oo uu gaarsiiyo moogta ay fahanteen eegimka kana codsaday marka kana waa inaan ku configure gareeyaa inuu kan gaadho may garatay marka waxa weeyaan horta router 2 aan fiiriyo inuuba interface brief okay 0.1 was assigned some other how do show interface serial 0/1 okay so saas ma 0.1 marka inagu maxaa nidhi kan interface ka noo soo maray baan nidhi soo ma interface kaas noo soo maray nidhi marka interface kaas 0.0 ga muxuu haystaa 1.2 soo ma haysto ha okay 0 okay 1.2 marka inuu bingareynayo isagu isbingareynayo marka hore inuu kiisa kala bingareynayo okay good marka router 1
router 2 marka ma bingaraynaya okay marka maxaan nidhi show ip route router 1 marka static maynaan dhigin miya okay waxaan leenahay ip route waxaan leenahay kaasaan gaadhaynaya waan ku celinaynaa for some reason muu gelin waxaan leenahay ip route marka waxaan leenaynaa networkgaas rabnaa inaan gaadhno inagoo laynoo soo marinayo ip addresskaas oo ah 192.168.1.2 in laynoo soo marinayo waxaan ip route 172.16.0.0 waxaan leenahay 255.255.255.252 may garatay marka waxaan odhanaynaa noo soo mari 192.168.2 sorry .1.2 okay do ping markii aan nidhi waa kaas ma aragtaa marka hore bingigi waa inaga diiday moogta markaan kaa noo soo marayna waa ka bingaraynaya .1 waa bingaraynaya oo kaas ah .1 oo kaasna waa bingaraynaya .2 oo kaasna wuu bingaraynay .2 ma bingaraynaya miya ma bingaraynaya sababtoo ah in host kan buu gaaraya ilaa kan aan sheegno way okay good halka ku guuleysanay okay marka waxaan doonaynaa hadana R1 inuu soo gaaro ka iminkaan gaarsiinama inuu ka gaaro ayaan rabnaa okay marka maxaa odhanaynaa isagana wax yar xaggaas ma wax yar kuwan koraan nagu yar qaado haahay marka R1 waxaan doonaynaa kaasaan la beegsanaynaa inuu inoo gaaro R1 ka halka yaalay oo laba network u dhaxeeyaan marka maxaa odhanaynaa ip route in hay kan doon waa kaas oo ma horena 172.16.200.0 horena 255.255.255.0 halena ip route gareen networkgaas oo magarasa sabna maskigiisuna yahay 255.255.255.0 oo ah ma garanaysaa in static caadiga ah ma garanaysaa in 24 bit ah route garay ayaan leeyahay oo soo gaarsiiyay adoo soo marinaya yaa odhanaya ma taqaana interface-kan wali adoo soo marinaya interface-kayga because kan aan joogaa moogta mar walba inaan kan la soo mariyo ayaan rabaa marka maxaa odhanaya 192.168 doorkan waaba ka bedelaya waxa odhanaya ma taqaana interface-kan soo maray baan odhanaya marka hore ip address-kan aan gelinama imka waxa odhanaynaa interface-kan soo maray amaba may aan hal mar kan ka wada dhigno ana 192.168 aan kiisa ku dayno .1.2 ka soo maray okay kaasna ma nidhi imka waxaan galaynaa router 2 waxaan doonaynaa router 2 inuu gaadho kan soo gaadho ayaan rabnaa router 2 ma garata marka waxaan odhanaynaa router 2 ip route router 2 baan ku isticmaalaynaa ma garanaysaa interface-kaas soo maray ah marka iska jira haddii aad network soo maray aad leedahay router 1 imika ka soo mari buu yiri moogtahay haddii laakiin interface soo maray aad leedahay oo router 2 tusaale ahaan joogto ama router 1 aad joogto interface-ka kugu xigtay noqonaysa interface-ka soo maray router 1 imika hadaan leenahay imika router 1 markii aan lahaa network-gan soo maray interface-kan ip address-kan soo maray buu lahaa haddii laakiin interface soo maray odhan lahaa interface-kan ma sheegeen interface-kan uu sheegi lahaa isaga ugu dhow ee 0-ga ee most trusted-ka ma fahanteen marka eeg waan iyadoo action aba inay tusaya baan wada ip route okay waa router 2 ya ka inuu gaadho rabaa 192.168 ilaa nimka isma gaarayaan oo kan ugu xidhan moogta inay is gaarayna waan tusi aan bingarayna bas ka dhaaf kana router 2 baan ku jirnaa waa aniga arkay router 2 ka inaad bingarayna rabnaa raana 192.168.2.1 ma gaarayo sababtuna maxay tahay the network waxa protocol xidhiidhanayo ma jiro marka aan idhaahdo ip route si aan u gaadhno 192.168 mar walba remote network ayaad ku qoranaysaa okay marna remote network weeyi moogta remote network waa kaas moogta ka kuma qoranaysid routing ka table-ka kaasaad ku qoraysaa moogta waxa leedahay 192.168 okay .2.0 255.255.255.0
إن مركا حورنا يا interface كان يسوى مري إنك بلاك router 1 مركان جوجنا وحولها interface كان يسوى مري سوما لكن إمك حطان لون IP address يسوى مري إمك حطان لين هاي IP address كاسون نقول interface كاس وحورنا لها 192.168.1.1 يسوى مري أو interface كا IP address كي قال يسوى مري ورنا لها لكن إمك ما دام لها interface يسوى مري inter marka hore IP address soo maray baa la marka interface kan buu in noqonaya marka la interface kan ii soo maray ma oran karayo interface kan ii soo maray oo ima shaqaynayso marka maxaa oranay interface kaas maxay tahay 0.0 interka ii soo maray bal marka inuu bingareeyo mar labaad aan eegno hadda wuu diidanaa imika waa ka bingareeyo ma jeedaan waa ka in bingareeyo mar labaad in igu celiyo waa ka bingareeyo okay good okay marka waxaan rabnaa inuu R2 ka helo ayaan rabnaa R2 inuu ka gaadho okay sidaynu moodayna IP route okay marka kan host route baan ka dhigaynaa ya kan host route ayaa baan ka dhigaynaa okay hadana yaaba host route ma ka dhigaa ha okay host route ayaan ka dhigayaa beeska saan nigu tuso waxaan 172.16 and okay inaan ka gaaraan rabaya because 172 IP address kiisu kaasoo noqonaya Soomaa ka yaani router ka number 1 waxaan 200.1.255.255.255.255 dhageysta hadaba imka waxaan soo dhiganay static oo ah marna interface ilaanka waxaan soo nidhay marna interface ayaad odhan kartaa ii soo mari oo interface kugu xigta router kaaga interface kiisa weeyaan marna waxaad odhan kartaa IP address IP oo kan marna waxaad odhan kartaa interface ka ii soo mari oo de kan baa interface waad ku apply gareyn kartaa moogta IP route kan aan ka wada ka hadlaynaa interface kan ii soo mari baa odhan kartaa kan maaragtay interface kan ku apply gareysa kan waa ku apply gareyn kartaa kan waad ku apply gareyn kartaa saddexdaba moogta marka laakiin waxaan nidhi kan aan soo dhiganay waxaan nidhi marna interface isagoo aan soo aragnay oo iska on ping gareynay marna waxaan soo aragnay isagoo network soo maray ah Soomaa saa ila socda marka maanta waxaan oranaynaa imika kan host route kick oo kana ayaa inaan tuso rabaa kaas inaan rabo marka default-gana ka kale inagu tusi doona host route ka inaan tusaan imika rabaa waxaan oranaynaa 192.16.200.1 oo ah kan kuwaasminka router 3 haddaan galnaday to show IP interface brief router 2 haddaan galno waa ka IP address kan raadin doonaynaa moogta waa kan router 2 waa kan moogta waxaan nidhi .16.200.1.16.200.1 waa kaas ma ujeedaa okay marka waxaan odhanaynaa okay marka waxaan odhanaynaa ii soo mari إن كان كوجرنا موقتي interface ما قرأنا سواء إن IP address كأي سومري أو 172.16.1.2 هكذا هذا 172.16.0.2 إيسومري بعدين أوكي good مركب الحين فيرنا إنا بينقرين كرنا host كاس إنا بينقرين كرنا يجينا إنا جو host الراود استعماله يا بسم الله الرحمن الرحيم 16 okay 16.200.1 وكبارك تنسى إنه بينقرأ موجودة وhost إنه وان استعماله وكا command دقان استعمالنا command دقاس أيو أها command دقا أيو أها command دقا واني كوبيين بيسوك هالكنا نسي أنيقو أرورين مركلا أقرت سي يعني مقرأنا سا أدو أركتانون okay marka maxaa inoo haray imika waxaan soo aragnay kan waa idin tusay isagoo interface leh oo interface iyo isagoo IP address la soo marinay Soomaa marka kan oo host route kan waaniga email tusama kan aan hadaba imika ina tusaya kan maaragtay router 3 waxaan odhanaynaa nimsa saacad nimsa maraysa ma baan eegin bi afreesadan wow wala router 3 maxaan odhanaynaa marka router 3 waxaan odhanaynaa أو router 3 waxaa odhanaynaa ma taqaana waxaan odhanaynaa in gebiga wax kastaba aanad hayninba waxaad igu dirtaa ma garanaysaa yani network kasta oonan igu aanan routing table-kayga imika egday show IP route haddaan idhaahno
waxba routing table kuma haysana intan yar isagu uu leeyahay maahe marka xareena war network kasta waxaan rabaa default network waxaan rabaa network kasta oo routing ila imika routerku muxuu network ku gaadhaa imika router 1 tusaalahan wuxuu ku gaadhayay routerkaas ma wuxuu ku gaadhayay routerka de waxa ugu xidhan ma garanaysaa eeg in IP routing table ku haysta waa kan iyagoo static ku haysta oo imka hadaan idhaahno do ping 172.16.200.1 200.1 isaga kuma inaan configure gareyn laakiin waxaan ku configure gareynay in kuwan kana ku configure gareynay moogta kana inuu gaaro marka kan network kan uu haysta moogta ilaan router 2 baa wixii ka inoo gaaray marka imika kan uu haysta wuxuu ku haysta static oo ah waa ka static buu ku haysta ma garatay marka saas isku gaadhaan marka wixii routing table ka dad ku haysatid routerku wuxuu routing table ka ku haysto buu gaadhaa ma gartay wixii kalena wuxuu diraa ka ma garanaysaa wuxuu u dirayaa ma garanaysaa de wixii routing table ka interface ki proper ku ka bixinaya ayuu ka baxayaa packet ku marka wuxuu gaadhayaa ka kale ee ma aragtay marka mid saas yaani isku tusaalahan imika router 1 wuxuu haystaa wixii directly connected ah iyo wixii static marka wixii static jihada ay ka uga yimaadeen interface ka wuxuu uga yimaaday interface kan uu u diraya interface ka markuu kan u yimaado router 2 na kan uu xidhiidhinaya ma fahamtay okay marka imka router 3 waxaan leenahay waxba aadoon haynin magaraysa waxaan leenahay IP route waxaan leenahay wax kasta oo magaraysa network kasta oo subnet kasta wata waxaad marisaa waxaan leenahay interface serial baa isticmaalayna moogta interface kiisa aan isticmaalayna serial/0 ka u dir marka show IP route wuxuu oranayaa magaraysa waa kaas everything magaraysa directly connected yani interface kaas aan ka bixinaa marka imka waxa weeyaan imika hadaan idhaahno imika inaan bin gareyno interface kaas waa eegayna inaan bin gareyn karno 192.168.2.2 waka balak interface ka router ka xitaa router 4 isaga on routing table ka aan waxba ku haysan oo wixiisu uu iska wada ma garanaysaa sidana sanadana tusay 00 ku haysta ma 00 waxa way every network ma garanaysaa igaarsi adiga iska dha every network igaarsi saas ma noqonaysaa marka imika kaas oo shaqo ku leeyahay halkaas isaga oo static aan u sameeynin waa ka bin gareynayo waa ka bin gareynayo moogtay datu router 1 router 4 ka hadii imkaan ilaano ka inuu bin gareeyo uu bin gareyni oo ah 1.1 uu bin gareynayo waka ay fahamteen marka saddexdii saas ayaan inagu wada tusay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa inagu dheeraaday in casharkii marka aad buu muhiim u yahay saa ila socda aad baan ni jecelahay asxaabta dhammaan Soomaalida adduunka ku nool ee ardayda wax baranaya kuwan waxba baran ba aad iyo aad wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wixii comment rabtaana ku soo qoro assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh